haddaad ku nooshahay muqdisho ama soomaaliya gurigaaga waxaa gubaya beko powerin korontada hormuud telecom ayaa gubaysa debdemiskooda goordamba kuu imaanayo dabka kuu daminayo guri biyo ku shubaya naflacaari ayaa tahay waa lagula talinayaa naflacaari ayaa tahay waa lagula talinayaa taa lagu siinayaa inaad tagto salaam bangi oo deyn ka doonato deynta waa ku siinaa laakiin waxaa lagu leeyahay shirkadda alburuj ha soo qiimaysa gurigaaga intay kugu dhisayso isla shirkadoodii ayaa kugu dhisaysa waxaa soo raacaya inta maxaa soo raacaya mataqaani waxaa soo raacaya ragga maamulka hormuud telecom ama albarakaad group waxay arkayaan dhul meel istiraatiiji ku yaala way ku imaanayaan waxay ku leeyihiin dhulkaana u baahannahay naga iibi waxaa leedahay dhulka mustaqbalka dhaxalka caruurteeda way idinka iibinayo markaa sidaa tiraahdo qof bay soo diyaarinayaan waraaqa been abuura loo samaynayaa garsooraha maxkamadda gobolka banaadir la hadlayaan waxay leeyihiin ninkaas uu dacweynayaa dacwad baa ku imaanaysa dhulkaaga adiga aan lahayd ee ilaahay iyo adigu waad ogtihiin dadkuna markhaati ka yihiin baa lagugu qabsanayaa kadib garsooraha maxkamadda ay lacagta siiyeen dhulkaaga kaa xukumaya stressay kugu ridayaan markaad waalato ee idaacadaha soo fadhiista amaad meelaha ka qayliso ayaa niman dalaalin afmishaar lagu soo diray waxa lagu leeyahay niyow xal wanaagsan baan kuu haynaa oo muxuu yahay xalka waxay ku leeyihiin nimanka hormuuda lacag ku ogoor ka qaado ayagaa iska celi kara ninkaan adiga iskama celi kartid qofka dhulku weystay gabadhaan hooyadeeda mariixaana hooyadeeda mursado ah ama waa mursade waa habar cayno ama waa reer dalal oo waa reer diini dadkaan hadhow kama adkaa kartid niyahow nimankaas hormuuda ka adkaa karee nimanka hormuud aan lacag kaaga qaadno adigoo tacbaana oo nafta ku hayso ayaa leeda waayahay iga qaada 5 maalmood bay ku soo celcelinayaan markaasaa xoogaa lagaa siiyay dhulkaagii dhammaa lagaala wareegaya dukumiinti lagaa tirsanaya dhul baa isku qabsanaysaa gabadh iyo badhaala cayro ilaa muxuba shiilaale ayaa hotel saxaafi waxay ku leedahay guri weyn bay ku leedahay qasri ah oo quruxda meel istiraatiiji ku yaala gurigu Axmed Sacuud soo arkaday ninka mursade ee ka ah meesha maamulaha soo arkaday wuxuu guriga naga iibi way ka diiday gabadhu Ingiriiska diganta waa Soomaali British kadib gurigu ku habsaday gabadhu bir maxkamad la'aan la ka haystay iyadoo aan maxkamad xukumin 7 bilood ay xabs ugu jirtay oo xirrid markii dambe cidda ceera ka war heshay hubkooda qaateen gabadhu waa soo deysteen gurigii markii la fiiriyay oo la sugu yeeray guddiga gabadhaana iska lextaa meelba kama soo galaan ayagu wuxuu bashiilaalay 7 bilood bay u xirrid ilaa ay ku xanuunsato oo xildhibaano dir ah iyo kuwa habar giira iyo Yuusuf Indhacad intay u gurmadeen ay ka soo daayeen wiil uu adeer u yahay Abshi Nuur Faarax Bacadle oo la yiraahdo Cabdi Saciid Nuur Faarax ayaa wuxuu joogay dhulka Mooriyo joogay waxaa lagu yiri lacagtan qaado iska bax waa diiday dhulka Ibraahim Laayaan la iskale oo loo hayay Cabdi Saciid xabsiga loo taxaabay 1 sano oo soo laqay qolaas waa waashicid saarihilu lahu sacada Cabdi Qeydiya loo tagay 300 oo dhab lagu yiri kaniifa loo tagay 150 dhab lagu yiri ilmihi kala kontra loo qeyb waa intii $500,000 Cabdi Saciid waa yaabani tolaan tol milyan may wax salaamay wax u tagay male wuu xireen maamulaha hormuud telecom u xireen hayay ka carra Axmed Sacuud uu xireen markuu ka soo baxaa 20 ku la siiyay anda loo tagay qalada ku maagtay ninka raali gili hadda kadib ana shaqaale ay tahay bishina $300,000 aad leedahay oo shaqaale ah marka dhulka Moori iyo ilaali Cabdi Saciid ninka dhamaa ee qamarjiga ahaa ee meesha mataqaanaa oo Ibraahim Laayaan mataqaanaa ilaalinay hadda meesha wuxuu ilaaliyaa dhulkii Moori ee Ibraahim Laayaan lahaa Axmed Sacuud uu ilaaliyaa markii waxa way dalka way baabiiyeen dadka dalkii way baabiiyeen dadka maskaxdii ka baabiiyeen waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ee danyarta ah ee dhulkooda xoog ku haystaan ee shiiqaal gandashaha ay qaxinayaan reemantaanka iyo mursadaha iyo habar gidirta ay dhulkooda xoogayaan mariixaan iyo iska wada majeertay kuwaas biroo la laqay
dirna sheekadooda wax soo hadal qaadin waa guriga Cabdiraxmaan Baariyow Cabdiqaadir Baariyow gurigiisii labadiisa hotel Axmed Nuur Cali Jimcaale xukumaysa 7 sano ninkii afayeenka dudublaha ahaa ee guddoomiyay xigeen golaha Habargidar ahirina iyo kii suldaanka Maxamed Camal sheegtaba markii hadlay waxay dhahan dir soo dhiibto soo dhiiba wargurigiin ma aragtay qabiil la soo dhiiba aniga waxba sheegayaa maanta Axmed Nuur Cali Jimcaale kooxdiisa daara gacan lagu qaban oo laga hortagin maalin bay tagaysaa dalkan iyagoo ay lahaadeen dadkana ay gumeynayaan waxaan hadda maqleen nimankii amal ayaa soo wada isgaarsiin haddii taa ay run tahay waa wax lagu farxo daar cali sacuudiley saxaafaddu mala saaxiib joogtaa dabayshana geedaha uma ruxdana ciyaarsiisay habaqlayso